noocan dumarka kamida weliga ha guursan hadday xataa dumar ayagu ka soo haraan baahidaada ma gudi karaa qurux midaan ha u guursan qabiil dheer ay ka dheelatayna ha u guursan maal iyo mansab kalena dartii ha u guursan wax kastoo ay leedahay mar hadday sifaadkaani ku idlaadaan oo ay leedahay ha fiirin nin yahow ka carar haddii aad oori ka dhigitid taas abaar waxaan ahayn ka qaadi maysid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadgelyada alle iyo naxariisiisa allaha dushiina yeelo walaalaha barakaysan oo meel kastaa joogtaanba kusoo dhowaada casharkaani miisaankiisa weyn ayuu wataa. waa talo ku saabsan guurka qofka aad raadinaysid iyo qofka noloshaada soo gelaya. waxaan rabaa in aad ka fakartid si noloshaada u noqoto mid sida aad rabtay hadhow ay ku ahaato biidnillaahi. gaar ahaan waxay khusaysaa ragga oo dumarka waxaan leeyahay bal xoogaa raalli iga ahaada, waana dhegaysan kartaa, raggiina waa u gudbin kartaa, waa sii sheergarayn kartaan, bal macluum ahaanna u qaata. qaarkii sifaadkan isku tuhmayowna iska jar haddii lagu qabo iyo haddii aadan lagu qabinba, intaba haddii aad yartahay iyo haddii aad weyn tahay. waayo dhaqamadani dhaqamo aad iyo aad u liita weeye, caqliga iyo diinta iyo dhaqankana ku liita, nolosha dhammaanna ku liita. guurka sidaan la wada soconno waxa weeye deganaansho iyo meel uu qofku ka dareemo farxad uusan horey u haysan. bal ka waran haddii iskaabulonimadaadii noloshaad ku jirtay iyo markaad guursataa isku ka mid noqoto, oo wixii aad dareemi jirtay oo fikir iyo stress hawaagii iskaabulonimada aad dareemaysay markaad guursatay, bal ka waran muxuu guurka ku faa'iideeyay oo aan ka ahayn cadaab iyo jaxiim? lianna waxaad guursatay qofkii aan kugu habboonay, waxaad guursatay qofkii naftaadu raadinaysay, qof aan ahayn, qof aad ku khaldantaa jira. sidaa darteed waxaan ku leeyahay nebi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan ragga asagoo la hadlaya, addunyaa mataac, adduunyadu waa dheef waaya yar, adduunyadu waa iska raaxo kooban weeye. wa khayru mataacihaa, raaxada ugu fiican adduunyo waxa ugu fiican waxa weeye almar'atu saalixa, haweenayda wanaagsan. haweenay wanaagsan ayaa adduunyo ugu fiican baa nebigu yidhi. sidaa darteed bay culammada qaar markay fasirayaan, rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasana, inta hore aayadda wa fi ddunyaa xasana, culummada qaar waxay ku fasireen haweenay wanaagsan, yacni ilaahowna sii. ducada muuminiinta waxaa ka mid ah ilaahowna sii haweenay wanaagsan. saa darteed waxaad aragtay inay muhiim tahay, niski diintana way ku dhammaystirmayaan. laakiin hadday xumaato ka war waa mashaakil waay. 7 haweenan ku haya, noocaan ha guursan weliga, xataa hadday boqoro tahay, xataa hadday qurux leedahay. qurux midaan ha u guursan, qabiil dheer ay ka dheelatayna ha u guursan, maal iyo mansab kalena dartii ha u guursan. wax kastoo ay leedahay mar hadday sifaadkaani ku idlaadaan oo ay leedahay, wax kastoo wax lagu miisaamo oo kaloo la fiirfiiriya ha fiirin, nin yahow ka carar, ka guur, ka fogow baan ku leeyahay. wa ilaa soo maahan aday kuu taallaa waxaad kala kulantid. walaalaha qaar waxay dhihi karaan haddaan la shukaan haddaan qabo waaba aad dareemayaaba dhaqamadaas, laakiin haddaan shukaasanaysay u fahmaya, waad fahmaysaa, anaana kuu sheegaya markaa tilmaamaha kuu sheego. noocan dumarka kamida weliga ha guursan hadday xataa dumar ayagu ka soo haraan baahidaada ma gudi karaa. kow, haweenayda ugu horreysa waxa weeye waa haweenayda caasi ku ah waalidkeed. haweenayda waalidkeed ama hooyadeed ama aabbaheed caasi ku noqotay, ama ehelkeedii caasi ku noqotay, walaalaheed oo jartoo goysay, taas adigana naruuro iyo raaxo iyo nolol kuuma haysee ka fogow. see ku dareemaysa haddaad wada socotaan isu shukaansanaysaan? hadday ku tiraado markaa la hadlaysa aad ka dareentay hadalladeeda ay ku tiraado maanta madaxa yani ciil baa xanaaqsanaha, maanta maxaa ku haya qoftaydii, hooyaa maanta igu qaylqaylisay, ama walaalkay baan isku dhacnay, ama walaashay baan isku dhacnay, ama aabbahay baa saa yidhi. haddayba kaaga sheekaynayso waxyaalahaas waa caasi waalidiin. la soco, caasi waalidiin wey, wax ay kuu taraysana malahan, ubad khayr qabana kuuma dhalayso. mar haddaad aragtay iyadoo waalidkeeda wax ka sheeganaysa, hooyaas maanta saa ugu tiri, xaggay ka dhacday, walaashay ka fogow, midda waalidka ku caasiday xagga iska dhig. tan labaadi waxa weeye midda socodka badan, bixitaanka badan, marba meel taagan. xaggee joogtaa? heblaaya maanta meel u raacay, guri saaxiibaday baan joogaa, guri heblaayo kalaan joogaa, xaggaan taaganahay, ma ka maqanahay gurigii. haddaad aragtay intaa waana wada sheekaysataan, haddaaba isqabtaan waa masiibo kalaba, de nolosha gurigaaba dayacantayba, waa wada socota, waa sheekaysataan. markaad wacdiba maba joogto, meel waa raran tahay, waa geedi socod badan, lugtu ma daasho. hadba meel bay soo taagan tahay, hadba dalxiis bay u socotaa, hadba waxay taagan tahay mool, hadba waxay taagan tahay meel maqaaxiya, hadba meel bay xaafad bay ka sheekaynaysaa. wareeg badan
iska wareeji midda saddexaad midda maadiga shilinka markay ku soo wacdo lacag weydiisanaysa maalintii aad ka weydana ku xanaaqaysa ama ku jaraysaba beeso maadi way taas beesada bay kugu ixtiraamaysaa bas maalintaad u diidid maalintii ka weydo waa isbedelaysa dabeecad kale la soo baxaysa waji kale leedahay taana xagga iska dhig waa mid maadi way taas in la maal gashaday rabtaa bas maal gashi bay raadinaysaa oo lagu sameeyo bas wax kale ma rabto wax kale oo ay soo celinayso dheefa ma jirto meel baaba la maal geliyaayo dheefay ka soo baxdayo shaqo abuur keento dukaamo laga furtaayo hawlo badan keento Soomaa ayaduna shaqo abuur ma lahan wax soo celin in la iska maal geliyo bas ay rabtaa taana iska wareej midda afraad waxa weeye midda ixtiraam la'aanta gaar ahaan marka isqabataan ku dhaadhaamisa ama ku cayda ama wax ka sheegta la qofku markuu faraxsan yahay dadku markay heshiiska yihiin lama fahmo qofka fiican iyo qofka kale lama kala dareemo oo fiirsada qofku markuu faraxsan yahay waa faraxsan yahay qof walba dabeecad wanaagsan yahay kii dabeecadda xumaa kii dabeecadda wanaagsan lama kala garanayo xaaladda farxadda iyo xaaladda wanaagga iyo heshiiska maalinta la isku dhaco maalinta la isqabto maalinta mawaaqif iyo xaalada imaadaan ayaa qofka la kala ogaadaa qofkan dabcigiisa qof wanaagsan miyaa mise qof xun idaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka u yimid wuxuu ku yiri awsini nabiga ilaahay ii dardaaran yani dardaaranaysa ku dhigo لا تغضب يراعون ومصيبه لا تغضب صدح جرى ugu celceli inta bas qaadu yiri qofka xoog badan nabigu wuxuu ku sheegay qofka naftiisa xooga markay isbedesho carooto taxakameeya nabigu kaasoo ku tilmaamay markuu saxaabadu weydiiyay maxaa u taqaanaan qofka xoog badan markaas ay rasuulka ilaahay qofka wax dhulka dhigo way qofka lagdo jilaafada u dhigo feero way ma kaas ma qofka xoog badan waxa weeye qofka naftiisa markay carooto hananayo xakamaynayo ila markaad xanaaqdid ama marka qof isqabataan garoonka ciyaarta shaydaanka taala goolku rabo ka dhalinay ixtiraam la'aan haday kugu la dhaqmayso qadari la'aan qadarka iyo ixtiraamka adiga iska dareemaysa inaad leedahay hadaa hoos kaaga dhigdhigayso ama isqab ama inay isqab taasna xagga iskaga wareeji midda kale xigta waxa weeye waa haweeneyda marka ama gabadha aad isku dhacdaan nin kala dhoolo tus ka dhigata dhalinyaradu way sameeyaan labada dhinacba waa isku dhacdeen waxba idan dhexmaray basi kala jeesateen shaydaan baad chance siiseen Soomaa waxa aragtay iyadoo istaatika soo saaranaysa ama wax soo qoraysa ama sawiranin nin bay la xiriiraysa kuwa ayagoo la qabasaas way sameeyaan markii ninkooda isku dhacaan nin ay siqaanaan bay waxay yeetahay caawinada way mashquulsanba iska daamidaan la qabin mar hada aragteen kugu dhalo tusayso hadaysa sameyn oo adiga xoogaa dhiigaada iyo naasaada ku kicinayso waa baab kale meel kale u galayaayo markaas dhinac kale laga fiirinaya laakiin hada ficiliyan baarinta u dhacday oo kuugu dholo tusayso oo kuugu hanjabayso oo ay ku tusayso waxyaalaha noocaas xiriirka u jiro midkaas isku daba nabnabaysa waxaad ka keentaa leedahay dheead xabadii ka isku ridin walaalay stress kaasna waa midda kale xigta waxa weeye waa haweeneyda ama waa gabadha beenta badan midda beenta ay dhaqanka u tahay beenleyda waxay sheegto waxba kama jiraan waxay ballan qaadana ma fulaan waxay isku ogeeyeen meesha kama qaadaba beentu qofkay suurad xumaysa rag iyo dumar waxaanu dhan rag waa wadaagan laakiin markay dumarka galaan waa ka sii daran yihiin markay rag ku jiraan haweeney haday arintan galaan oo laga helo way ka daran tahay way ka halis badan tahay hadii isla intaas ninka laga helo halis waay beentuna waa nooc kamid ah waxyaalaha qofka looga durko asaga iyo dhaqankiisa nooc kasto yahay naxariis kasto leeyahay sifada kale xigta waxa weeye manad sheegad inay ku galad sheegato ana saa ku qabtay ana saa ku sameeyay sabanka way dhacdaa xataa haday maal siiso ana saan yeelay oo ana ku yeelay oo hadaan anigu jiri lahayn waxba ma ahaan lahayn manad sheegad baa leeyahay hadii ay ku leedahay adigoo sidaanan inta soo rag oo ka qurux badan oo ka karti badan oo ka wanaagsan ka soo doortay oo wax ka dhigay maxad ismood hadii ku tiraado ku manad sheegay kaanama inay janno ku geysaba ay ka dhigata kaanama inta ilaahay kaala hadashay dambi aad gashay inuu ku dhaafay oo kale ku hadlay oo kugu manad sheeganaysa taasna waa mid xun way ka fogo midda kale xigta ee ugu dambaysa soo qaadanay waxa weeye haweeneyda bugtada miirana waa mar walba waajibta waa xanuunsanta xanuun ma jiro way sheegan un bas riinta la yiraahdo way iska riimaysa mar walba waa xanuunsana hadda isla socotaan wada sheekaysataan isu shukaansataan waad wacaysaa xalama seexan labada indhood bay soo dhacay oo karay doorkaad wacaysaa maanta barqadii 5 saac lugaha jilbahan ka kici waay waa xanuunsanahay isbitaalan jooga daawaan u bugta la yiraahdo bugta badan iyo baahi badan wala isku naca Soomaalidu dhaha xanuun rasmi oo hay ma jiro waad u ogtahay oo xaqiiqa oo waaqic oo fasir leh oo macna leh laakiin qof soo ma jiro iska xanuunsanba xitaa hadduu xanuun yar soo gaar ka dhigaya xanuuno tiro badan isku yimid hadii intuu igu dhaco tusaale kale hargab ka soo qaad
hargabka dadka si mid walba u saameeya awood laakiin hargab baa ku dhacay haddaan ka soo qaado in xanuunkii musiibada ay ku dhacay kansar uu qofka ku dhacay ka dhigo ka war xanuun yariisa ku dhacaya xanuunkii baa balal noqonaya bug inuu qofka noolaanay in la nacay in la daryeelin buu ka soo qaaday bugtada taaha midda iska taahayso iska riimayso har iyo hameen oo xanuun ka sheeganaysa inta badan markay kulaado wax xanuunsan tahay waa taahaysa xanuun rasmi oo hayo macna leh ma jiro marka taasna waa mid stress kugu ridi doonta aakhir iskaga tag qurux kasta laaca kasta wax kasta ay haysato haddaad ku tixgelinaysid bugdhe ka tag qof kale wanaagsan raadi oo ilaahay akhlaaqi diin iyo dulqaad siiyo insha Allah ta'ala ilaahay ku saalah waayo haddii aad oori ka dhigitid taas abaar waxaan ahayn ka qaadimaysid nin walbana waxa leeyahay oo hadda reer leh oo muuqaalkaygan daawanaya inuu commentiga ku soo qoro alxamdulillah ilaahay mid wanaagsan oo sifooyinka lahayn ayuu isiiyay hadduu xataa mid ka mid ah sifooyinkan xaaskiisu leedahay ha yiraahdo sifaadkaas ay leedahay laakiin wanaagga ka tirada badan ayaa ka weyn oo ay ii haysaa ama ha yiraahdaba intaba waa ku arkay balse ilaahay dartii baan u dul qaadanayaa sabir badan baa ku noola laana ragga qaar markay guryahooda aadayaan waxay ku leeyihiin ilaahay ii soo bar inuu ilaahay isugo oo maxaa kugu dhacaya qabri baan u socdaa qabriga marka la isdhigo su'aal la isma weydiiyo يعني سو امتحان قفو كلام كل فتنة سو كلام كل ما قبر ومن فتنة عذاب القبر سو لما ده دعوينك وجرته قرقي قصاصه كله وين فتنة يمسيب عن صعوده الرفاض لما كقارب اللحسة من ما أيضا حاسكو سوتشو ده أن تجيب بقى ومركز حتى تجا سو كور وريجة يمرك هذه وركات قف دين الإسلام هيستوى مسلم وإيمان له تكني واحد رقم كائن وكي ماذا لا ما بان مركز حتى الحمد لله إلهي مسين مثل نوع عاسى أنا قلنا حلا الحمد لله إلهي بحاسكي سفوين كاسي كفوجي إلهي باكم محسن دمرون أني كان واحد اللي هاي هكا قتلنا هدي سفوين كاس قار على هذا هاي سوق روح ترى ذا يصبر يا إلهي جهنوني هل كان قف أولياء إلهي كم يدينه كتير على جيابا أو إلهي أنتو هالمركوب بريو إلهي صفات النيجاتيف كاو كاترو شرمسكا أدناها الله بخيرين السوقر أنو جنو أكود عيننا إلهي إذن كيس آدي آد بوما سنتين الله إذن بركيو ورأي أسعد مقال كان ولا لها لسي وذاك جزاكم الله خيرا.